dadka green cardka qaatay oo soo galay dalkan xilligii uu joogay madaxweyne Joe Biden 2021 ilaa 2025 dadkii soo galay oo sharciyada la siiyay ayaa waxaa ka daba imaaday oo la raba inay ka daba imaadaan maamulkan hadda jooga madaxweyne Trump. Maamulkan ayaa waxa uu sheegay in uu rabo in dib u eegis lagu sameeyo green card kasto ama qof kasta oo qaxooti ah ama asayli ah oo green card la siiyay in dib u eegis lagu sameeyo dibna looga qaado interview. So qof kasta oo green card qaatay ama soo galay dalkan qaxootinimo ha ku soo galo, asylum ha ku soo galo ama ingilidoon ha ku soo galo ama si kaleba ha loo qaabilo derbi ka boodba ha ahaadee qof kasta oo green card qaatay waa laga daba tagayaa bay yiraahdeen. waxaana haddeer